telefishinka caalamiga ee Ariel goordhaweyta hotel Maasoor waxa kula hadlay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda Daahir Rayaale Cabdilaahi Ismaaciil Cali Ciro waxaanu markii ugu horeysay telefishinka uu xaqiijiyay inuu ka mid noqday siyaasiyiinta ku biiraya xisbiga mucaaradka ee wadani horeba u sheegay in badan aan joogay magaalada way arag maanahay siyaasadda in badan baan ku soo jiray aqoon badan oo way aragnimaan lahayd markii aan dhinac kasta eegay markaan dhinac kasta xuuraamay go'aankayga waxaan ku qaatay inaan xisbiga mucaaradka ee wadani ku biiro kaasoo noo arko badbaadada dalku inuu ku jiro siyaasiyiin fara badan oo dabcan deegaanka ka soo jeeda musharaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi hatta waxay u yaacayaan dhinaca xisbiga mucaaradka ee wadani arrintaas maxaa loo tafsiirin karaa maadaama siyaasi weyn aad tahay dabcan waxaan u arkaa in sida raggaas inay aniga ila mid yihiin oo badbaadada Soomaaliland oo xisbiyadu saddexda xisbi waxa loo furay in qaranka badbaadadiisa qof kasta halku jecel yahay mabda ahaan inuu galo mucaarad ku helo barnaamijkiisa siyaasad ahaan dhaqaale ahaan cadaalad ahaan inuu ku biiro marka dadkaasi waxaan u arkaa in dad sida fikirkayga kale iyagu qaatay oo ugu diga ruganaya markii ay arkeen in danta ummadda Soomaaliland halka ku jirto inay qabyaalad ku jirin ugu dambeyntii waad siyaasi weyn baatay waad garanaysaa kolba oo maadaama xisbi hore la soo martay arrimo badan waxaad soo martay dabaysha iyo arrimaha waad garanaysaa saddex xisbi baa tartamaya maxay kula tahay wallahi taasi ilaahu baa waa caalimul qayb ku sheegi kara siyaasi kasta aan ahaadee mar rabo deeynaan wax ilaahay awoodiisa aan ka sii faallado qofku ilaahay u qoray xukunku ku dhacayo noqonaya xaakim oo ilaahay aakhirana la xisaabtami doono ayuunbaa iman doona meesha kulmiye ka waran hawshiisa wallahi kulmiye de waa xusbi qaran markaa shakhsi ahaan waxba uga sheegi karo xusbi ma doonayna inaan ka hadlo shakhsi ahaanna ma jecli inaan la caytamo ama wax la sheego hebel baa caynkaas iyo hebel baa caynkaas shakhsi ahaan ma aaminsani waxaan aaminsanahay in lagu tartamo barnaamij iyo horumar taageerayaal badan ayaa dabcan aad leedahay taageerayaashaadi maxaad oranay taageerayaashaadi waxaan oran lahaa halkaan idin soo sahmiyay anigoo de kulli la tashan doona wax badan la tashaday haddana halkaan inoo soo sahmiyay baan ilaahay ka baryay inuu khayrku inoogu jiro muddooyinkii u dambeeyay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa ku sii qulqulayay siyaasiyiin badan oo ay isku deegaan yihiin musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Badri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga ee Ariel Hargeysa.